kubadda cagtuna waa isdhexgal dagaal maahan qabiil maahan de walaaleen insha Allah meesha si fiican bay nagu soo dhaweeyaan Masar Sooreen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa iyo taageerayaasha dhammaan asxaabta reer Gurceel insha Allah de message qurux badan baan iga marka kalkacay tagno insha Allah waxa gashin waxa gudiin dadka galkacay jooga Gurceel soo gaarin baa uga sheekeen doona tiimka Arafat oo nooga yimaada galkacay oo ku soo dhaweeyna degmada Gurceel mar labaad oo galabta ku wada ciyaarnay istaadiga weyn degmada Gurceel halkaan kala soo hadlayo waa garoonka Shibroonshe ee degmada Gurceel waxaan halkaan galabta ka dhacday kulan aad u xamaasad badnaa u dhaxeeyay laba kooxood oo ka kala socday degmooyinka Galkacyo iyo waliba Gurceel kooxda Arafat oo ka socotay Galkacyo iyo kooxda Jubayus oo ka dhisan degmada Gurceel ayaan halkaan kulan aad ku dhaxmaray taageerayaal aad u fara badan ayaan garoonka soo buux dhaafiyay si ay u daawadaan ciyaartaan quruxda badneed ciyaarta ayaan ku soo dhamaatay eber intaas kadib qaar kamid ah ciyaartooyda labada koox ayaa dareenkooda nala wadaagay awaargeena asxaabteena tiimka Arafat oo nooga yimaada Galkacyo oo ku soo dhaweeyna degmada Gurceel mar labaad oo galabta ku wada ciyaarnay istaadiga weyn degmada Gurceel waxa waaye ciyaar aad iyo aad u qurux badan ayaa noo dhacday labadeena tiimba marka waxaan leenahay tiimka martida oo nooga yimaada Galkacyo soo dhawaada gacmo furan mar walba waxa waaye meeshan waa markii labaad oo imaataan marka insha Allah waxaan idin rajeeyo doonaa insha Allah sanadkan sanadka ku xiga insha Allah inaan aadana wada kulmi doono marka aad aad u mahadsantiin banooniga quruxda badan soo bandhigteen my team Jubayusna waxaan leeyahay aad iyo aad soo dhaweyseen tiimka Arafat oo nooga yimaada Galkacyo aad aad u mahadsantiin ciyaartii baraje ku dhamaatay 3 wiil garoonka la soo galaa weji kamid ah qaadanay oo ah barbaro insha Allah walaalaheen Jubayusna kubad fiican soo bandhigeen annagana Arafat football club kubad fiican soo bandhignay kubadda cagtuna waa isdhexgal dagaal maahan qabiil maahan de walaalaheen insha Allah meesha si fiican bay nagu soo dhaweeyaan Masar Sooreen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa iyo taageerayaasha dhammaan asxaabta reer Gurceel insha Allah de message qurux badan baan iga marka kalkacay tagno insha Allah waxa gashin waxa gudiin dadka galkacay jooga Gurceel soo gaarin baa uga sheekeen doona de annagana si fiican baan soo dhaweyn doona insha Allah marka degmada kalkacay timaadin waana mahadsantiin aad iyo aad mahadsantiin dhammaan dhalinyarada maamulka guddiga Jubayus taageeraha dhammaan si u soo buuxiyeen garoonka ciyaar wanaagana ay u soo bandhigeen oo taageer wanaag u soo bandhigeen maaragtay sida nabadda ay ku daawanayeen dhalinyarada Jubayus ayagana aad bay u maasan yihiin sida wanaagsan oo sharafta leh qiimaha leh qaayaha leh inoo soo dhaweeyeen marka bacdil mahad waxaan rajeynayaa ciyaartii maanta meesha ku dhamaatay ciyaar qurux badan ahayd midaas mid la mid ah waxaan rajeynayaa in annagana ku marti gelino magaalada Galkacyo kuwa aan marti nooma ahane dhammaan meel walba Soomaaliyeed degto qof marti ka ah ma lahan marka dhammaan way degan yihiin ma ahane meesha waa la wada leeyahay marka waxaan rajeynayaa in mar annagana hoomkana noo imaadaan si wanaagsan oo soo dhaweeyno ayagana soo dhaweynteena soo dhaweeyno uga mahad celinaynaa anigu waxaan ahay macalinka Jubayus oo galabta waxaan meesha marti noogu ahay Arafat oo ka socday Galkacyo aad ay mahadsanyihiin dhammaan waxaan halkaan oo kale uga mahad celinayaa gudoomiyaha sportska Abbas Abdiqaadir oo suurtageliyay in ragana noo imaadaan sida quruxda badan oo aan ugu dheelno garoonkan weyn Shibroonshe wax kale oo u mahad celinayaa dhammaan dhalinyarada Arafat oo noo timaaday markii labaad noogu timaaday degmada Gurceel insha Allah meeshan kuma ekaad doono kulmadanaga waa u aadi doonaa annagana Galkacyo meel walbana isku tagi doonaa kubadda cagtuna waxa waaye isdhexgal bulsho oo u wada simanahay marka waxaan leeyahay degmada Gurceel ku soo dhawaada sidoo kale gudoomiyaha sportska ee degmada Gurceel ayaa isaguna kooxaha ugu mahad celiyay sidii quruxda badneed ay ciyaar wanaag soo bandhigeen waxaan leeyahay ciyaar wanaagsan baa galabta garoonka ka dhacday maanta ciyaartaas oo u dhaxeeyay Jubayus Academy Gurceel iyo Arafat Academy Arafat football club oo Galkacyo waxaan leeyahay ciyaarta quruxda badan soo bandhigteen walaaleen waa mahadsantiin sida quruxda badan oo aad noogu imaadeen waad ku mahadsantiin insha Allah Galkacyo waa imaan doona hadaan Gurceel ka socono Galkacyo waa imaan doona insha Allah sportska siisa waa isdhexgal bulsho waaye meel kasta oo dhalinyaro isku barano waxa sports dhexdiisa isku baranay aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa